waxaa magaalada Buuhoodla ka dhacay munaasabad lagu shaacinayay Garaad Cabdilaahi Axmed oo ka mid noqonaya madax dhaqameedka Soomaaliya ay doorteen beesha Aadan Axmed. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay garaado, cuqaal, culumo iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horreyn halka waxaa ka hadlay cuqaal, waxgarad iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu dambeyn hadalka waxaa soo xiray Garaad Cabdilaahi Axmed oo sheegay inuu cadaalad u dhaqmi doono dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Aan ku soo dhaweynayaa Cabdilaahi Cabdi Axmed waa idinla dooranay beesha Naaliye Axmed hadaan nahay waa idinla dooranay lix oday oo ilmaha gara afkooda ku hadlaya runtii dad fara badan oo tuulooyin fara badan degan baan arrinta ka wada shirnay ka wada hadalnay waxaan sheegayaa dhammaan bulshada ilma bahogaadeen haddii percentage lagu dhufto boqolkiiba 99 ama 98 ugu yaraan waxay ayidsan tahay hoggaan Aadan Axmed oo aan cid lagu xumeynaynin oo kororsiima ah oo lasla qaatay Garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi Ducaale inuu noqdo ayay aaminsan yihiin oo jiif abshir kooreeyo ugu horeeyo culimadiinka shaacinayso Garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi Ducaale shaacinaya oo iska soo dhex qabtay oo ka shawray oo hawshiisa meel dhigay beesha Aadan Axmed ilaahay garaadkii u shaqeeya ee anfaca ilaahay ha ka dhigo isagana waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa xilkaas inuu ilaahay ku asturaan ilaahay uga baryaynaa beesha Aadan Axmed waxaan leeyahay war dadku qofku shimbirtu haddaanay baalan lahayn ma duusho haddii aydan garaadka la shaqayn ma shaqayn karo guda iyo dibadba waxaan leeyahay idinkuna la shaqeeya Allah inoo barakeeyo berigi anagu aanu soo gaadhnay dadkoo dhan waa ka weynay aniga Xasan Xaaji Haaruun iyo Abshir iyo ragaas waanu ka weynahay dadkan oo dhan waxaanu soo gaadhnay in la yiraahdo maanta kale kugu maalay bay ahayd arrinkiisu kaas ah Cabdilaahina waxaan leenahay kugu maalay amiin ilaahay isaga qaadir nafsi khayr la Allah inoo soo dejiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa rabbiga kii lagu aflaxo ee kuwii hore dhaama in ilaahay ka dhigo waxa weeye waqtigan xaadirka Soomaaliya waxa siyaasadii dhaqankii iyo siyaasadii nimanka ismada isku haya warnoo shaqeedaha oo cadaalad noogu shaqee garaadka waa dooranay Garaad Cabdilaahi Axmed surub waa dooranay asahan waxaan ilmaabtibaan aabbahay iyo hooyadii laba walaal kala dhalay waxa weeye awla wiilkaygii oo hadana waa garaadkaygii reer Subaa Caligari oo dhan waa sida reer Subaa oo dhan waa sida way fadhiyaan hadda way joogaan waxa weeye qoladan Caligariga ara geel baan la wadanaa oo iyaga hadda geel baa garaad Soomaaliyeed garaad soo dhawow annagu umka waxaa noo haray garaadka waanu ducayno dadka ka soo qayb galay waanu ducayno hadday kuwii keenay yihiin iyo hadday yihiin kuwa soo ajiibay gogasha loo dhigay soo ajiibay yihiinba Aadan Axmed in badan baad ku foolanayseen inaad garaad soo qabataan haddaad maanta soo qabateen Garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi waad ku saxsantihiin waxaan leeyahay xafladuna waa furanta garaad ku soo dhawow cadaalad haddaan qofku uusan lahayn diin ma leh dad islaam waynu nahay cadaalad haddii la waayo diinna ma jirto waad ka baxaysaa runtii haddaad cadaalad aad gafto waxa weeyaan cadaaladdu waa number 1 anigu waxa ballaniga ah inaan cidna aanan kala jeclaysan oo aanan qofka kale ka jeclaysan qofna aanan u riixin xaggayga hadduu aniga ama ila qabiil yahay ama uu maaragtay ugu dhow yahay ama uu saaxiib dhow yahay ama maaragtay dagaar ay jirto oo mar walba aan ahaado qof dhexdiina ku nool dhex taagan oo cadaaladda u ah
tiir uu cuskado mar walba taas waa iga ballan waxyaalaha aan doonayaa inaan sameynaa waxa weeyaan shaqo loo dhan yahay oo qof kasta oo halkan jooga oo gobolkan Cayn waxa weeye gobolka Cayn dadka ku nool waxaan u ahay anigu qof matala meel kasta aan joogo Najaa Maxamuud Salaad telefishinka caalamiga CBA magaalada Buuhoodlo.